Kismaayo dad weyn oo noocan ugu qayb galeen runtii dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan qalbi jab iyo niyad jab ayuu ku riday arrintaas shacabka Soomaaliyeed marnaba inay nabadooda ku soo dhacaan waxaan aragnay waxaan sameeyahay madaxdii ka qayb gashay Kismaayo anshubkaas meeshaas ka dhacay ma ogol yihiin wiigan muudinayaan saddex iyo soo qor iyo doorashaa soo socota dalkan doorashaa ka dhacaysa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayr iyo xukuumadooda iyo baarlamaanka waxaan doorashaa la dareerayna shakhsiga ogolaan doona musharaxa xil Soomaaliya ka qabta rabo rabo qof la tartamo saddex qof iyo soo qor qofan kala baxa taasna doorasho u yaqaanin bariisa ma ku qancayaan hadduu farmaajo sidaa sameeyo iyo madaxweynaha isla rabaan maya sax maaha adoo magaalada dhinac ka joogo haddii lagu yidhaahdo doorashaa dhacday madaxweyne farmaajo la doortay talow muqaadanayay raggii ka qayb galeen musharaxiinta ah ee rabay siyaasadda inay ku tartamaan doonay arrintaas raallimay ku noqonayay waxaa fiicnaan lahayd maanta qof ka mid ah inuu ii jawaabo halkaan uu soo joogsado laakiin nasiib wanaag kaamarada ay ka wada dhuumanayeen Kismaayo kama dhicin doorasho xataa waxba kama dhicin dadka reer jubbooyinkana dhibkaas iyo muxuu magaxumadaas ku loo qaadi kara maaha senatarkii iga horreeya ayaa sheegay meesha waxaa ka jira oo keliya 8 kilomitir oo square ah oo cabsigelin iyo cagajugley iyo dhibaato ay ka jirto waay insha Allah wax badan aan hore uga hadlay Kismaayo waxaa ka jira meel kale oo aan Kismaayo ahayn ma jirtay degmooyin kale gacan ugu jiraan laakiin waa Kismaayo meesha waxaan qabaa in duceyno in Ilaahay dibka ka qaado laakiin waxaa xadgudubka dowladda Kenya ay dalkana ku samayso qofna ku waraysa dowladda Kenya waa iska leeyahay shakhsi shaqo tagay oo Soomaaliya oo laakiin u shaqo tagay dalkana xasanad dadka waa waddankana xasanadiisa leh waa waxa ku soo xadgudbay asagoo magac kala xambaarsan anaga waxaan loo aqaanaa dadkaas dadkii la xoreynayay ee dalkeena muxuu ahaa dhibaatadan ayuu ku dhacday amniyaalkeena uu soo dhintay ilaa haddana uu taaganayo iyaga ruuxooda inuu xoreeyay waxaase nasiib darro ah meel asaga gurmaysi ku jiro oo weligiis boqolsan meel carfaysa aan arko inuu ku dhafo gabdhaha inuu yidhaahdo gabdhaha ama oosida aqoon ayuu qofe da-aale asaga ayaa kusoo beeca muxuu ahaa carfiisa kuma soo barbaarin waa nin gurmaysi ku jiro goorma ugu sabart waaba garan waayo annaga gabdhaha iyo oosiga si fiican aan u yaqaani gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan muxuu ahaa oosiga si fiican aan u yaqaani maamadaas gabdhihii meesha joogana ma qaban gabdhaha Soomaaliyeedna ma qaban hablaha oo dhan oo caalamkana ma qabato laakiin nasiib wanaag qof dawaqsan oo wareersan oo gumaysi iyo cagadugley ku jiro warkii kasoo yeerayaan baa kasoo yeeraada bar waxaan leeyahay uhuru kiyaata sidaas uu jeclaamaayeen ogow Soomaali baa tahay baad iyo dadkaan u soo noqonayaan Soomaaliya sidaad la socotiin dastuurkii 60 عالم برد عالم هدوي ما كان مدحوينه وسشرعي كلام بعد معناه وحاول يقف كاستوى موادن وصومالي كهله وصومالي مال كاستوى جوجو قرنمان صومالي واجب خساره مركز سكاتا واقلوني وسكتاس لبنان سنه اما اذا اما بوت اما عند بولاي اما بوجي اما بوجي قال كل بلا يا نور سنتها انت يا صومالي كهله صومالي رابيتان ما انت لا نحسابي جانا
qodobka ugu dambeeya maqofka xukuumadda ay ka qaadatay jubbooyinka waan soo dhaweynaynaa runtii wasaaradda arrimaha gudaha raaca ay soo saartay waan soo dhaweynaynaa waa wax qiimo badan waa wax loo baahnaa waxaan rabnaa jubba loo wada leeyahay jubba la wada leeyahay jubba nabad ah jubba horumarsan jubba muxuu ahay dhaqaalaheeda iyo horumarkeeda iyo dadkeeda ay isugu xambaarsan yihiin inay dhisaanaan rabnaa dowladda federaalka waan soo dhaweynaynaa go-aankeeda keliya waxaan rabnaa inay tashiga la badiyo oo ay nala tashato insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu